waxa loo baahan yahay WhatsApp gabdhaheena waa taasaa Ilhaan Cumar Congress-ka fadhisa bal carni Soomaaliyeed ha hungureey fiiri ya anaga naftirkeena carabka ku dhaay wallahi waa ina inta salaada markaa tukata aad tiraahdo ilaahu gabdhaheena noo barakeen Allah inay astureena noo barakeen wallahi waxaan istaahilaa duco آمين زكي فيري هذه كونغرس كفديان محكمة أدونك كونغرس حتى حكومي كرتو إلهان حكومي كرتو أنا قاعد فدينا وكرت أدونك قعدتك اللي قابل أنا قاعد فدينا عالم كرك الصومالي شو حسوي صدق برقعيان ليش إني قبليني والله هرتين والله هرتين ليش إني قبلينا بدك لو حلو قد أنا وحبديه لا قبل أسمع حوينا الصومالي هلا قد دورت قبل دان ترى زكي الصوماليات لما طعمه الإلهان اللي ولا شيء الإلهان عمر هو سينجل فادر ما سوكر يعني نفتر كذا ثلاثة قطر that's why كندا ما شاء الله ها أنا وش يمكن كندا ما حسوسني أحمد ما حسوسني كوريا ويان الإلهان سيدا شيء كذا كل مغلي دور عروري آيات أبود كريا بكوريا مركز وحكي كوسا نقضي المذهب يكوسا بعينه كونغرس قبل فديدا وهذيك كنا الله نيسان عيال كيني بتبهدي شيء أيدينا واتنا عبيد بكرجة سكري المها ما شاء الله أبى في عم به ستي إلهي بأنا أوجر جاري ما شاء الله وقالي هو يوم البوير أبها إنه لكوريا أبيه بأن ربين المه إنه كرسي حاجة أسكت فهم الله أنا هرتاني هذيك هو يدا وين ربطها إن المه لكوريا ما ها إنا أنا الربين لكن أبيه بأن الربين المه إنه لكوريا هو يلا مركب ما تقول كسل فهم الله أنا من واسداس عدين بعد كرمنا عدا أنت وحبوا نقول لهم أنت قبل كل هذا شيء ما آمن يصير مياه. أو ما هذا اللي سومالي باخل دن. أنت هركونا صار غلطان وركوا أسقرنا يا وساب الرمود ولا فشل موقت مدول بهوست وجوري كحرت. وهايا ذيك الصومالي كواليتي وليه هي إن أنا تشيرين for example مرك ميزان كالعيارة يو كلامه العيارة يو محلي هذا ميزان كعلوس أو الكوريا ما أفكر هو كيس العيارة يو كلام. ninka Soomaaliga ah markuu miisaanka saa u soo koro ninka ajnabiga kasta ay soo koro wuu ku culays badan yahay nak wuu ka tuura halka nin ay Soomaaliya wuxuu ku filan yahay 10 nin oo ajnabi ah halka nin ay Soomaaliga ah ee miskiinka ما قفت والله ير وعانا عبين أو بابا أصلا أو لغة ير نمك سوامي ونمك جيل هلك جيل سجال قف كدلاية هذا واحد كان ليس عليه جلبة كان ليس أنا واحد كان ليا ميزانية هذا كوربان تولان دكنا شيء دكيس عبد الرحمن وتولان دكنا عارف أنت تجاري بقى يقدمي تولي وقصة هذا أمريكا دكيس تولان دكنا شيء كأكوها يعني نمك سوامي الحوك قبلنا كل شيء gaariba ay gadamay gaarigiiba markuu ay gadamay qabab ahayd baan wiilasha Soomaaliyeed tigay afar baan isku soo raacnay aniga markaas marka alig ila riixo gadaal ee la bixiyo waa isku tagna waana sabiib xiriirig waa rijin weyn waa iska soo reexan oday dariskayga ah u tagay ilaahay baan ku dhaartay markaas aan ku yiri gaarigii waxaan rabaa inaad bahalkii lagu kicinayo isiisa markaas yiri waayahay insaan u riixan waa riix weynaa kala xuyo عروتها ما كيصير كسر دشي أنا عروتها كرو يروحين والله أنا بين شيء ربي بقى يقول لو فرقوا كل ريحة كده كلام وصدق حنين يعني جب الريح وين لكن ما لقي أنا وكما هالليو مرقها يروجا يعني لقطة على كهذا ما لا حكى Soomaaliga maskaxda iyo maanka Soomaaliga ku jira maskaxda nooda isku dhashay yiri waa dadka ugu maskaxda yar u yiri adduunka oo professor ah waa runtii because waa wallahi billahi wuxuu yiri adduunka dhan waa dadka ugu maskax yar buu yiri Soomaalida aan lamayo waa runtii waayo ana ku soo diraa linkigaas si fiican u akhrisatid waayo waxay ma iga dhigaysid sidii adiga oda ala isku daayay meesha والله بالله أولاد بدنا قرر والله أو جامع أو بروفيسور أو حير وIQ وغير تدك أدونك وIQ غير لو صام عليه. وإسكنا هاي. وأنا قرع أنا. زكي أنا كسر شيء ده. Go ahead. No. عبد الرحمن go ahead. marka gaalada oo aynu la noolnahay
waa lagu yaqaanaa cid allaaliya ciddii horumar gaaraysa inay cagta hoos mariyaan ninka Soomaaliga ama IQ-giisu uu yar yahay dheh ama uu ballaaran yahay dheh ama waxba ma qaadan horta qof muslim waa ninka Soomaaliga waa qof muslim IQ-giisa ma yaraado tan kale ila waa qof ahlu salaada ilaahay u dukanaya ramadaankii wada sadaqadii wada agoonta wax taraya gabdho badan guursanaya waxyaabaha Soomaalida anyway mawduucigan ku soo laabto ninka Soomaaliga xoog kama hadlayo hadlaya East Africa marka loo baxo Soomaaliya laga baxo kale ilaa Kenya ilaa Ethiopia madaxdii soo marto hore waxa loogu dagaalayo waxa weeyaan IQ-ga ku jira adduunka kale cid ku jira male South Africa wada aragtay waxay ku qabsadeen aan ku soo wadaay ma caawa carfaysa fiiri waxay ku qabsadeen maya ganacsiga ay leeyihiin dayuuraha ganacsatada ay leeyihiin sidoo kale wadaan Mareykanka ku soo haray waliba Ethiopianka iyo Kenyaatiga waxay yiraahdaan qofka Soomaaliga meeshuu maro adoo indhaha isku haystaa lu maraa oo ma hadii god ku dhacaysan waa la Soomaali ma maray ha waa la daba maraa gabdhaha Soomaaliyeed ma waxa la leeyahay nimanka Soomaalida oo waxay sida u amaanayaan ka soo tag miisaanka ku sheegay walaalayaal ninkani waa qaxooti waa maskiin aqoontiisi iyo luqadiisi wixii dhan waa wax nooc kala ah iska maskiin wadankan aan aqoonin wuu soo galayaa hatta China Chinese-kii waa la yaabay يعني قفهم وحنا قرن وحنا آخرين هذانا ملايين دولار هيستو هذانا شقيسانية أنت أردي من سومالي وبالغو أركان مركز قبلها يجا وليس كأي نمك الصومالي تكوها يعني هذاني كدينين 20 years وحنوصل بحيا مركز نمان وثقة أو بابا أو هو يكوريسا صومالي هوري يقول دار تبعتني إسلام كوريس يا الله كاقاد كيف لقاتي مركز يراد الله كاقاد بالقاتي قبلها المها يكون كورنيان قربها يكون كورنيان كل جودي كورنيان يعني عواقب كسو صعدوا عواقب اد افولحوميان ilmo bilaaba ah adduunkiyo dhanba wuxuu ka taagan yahay qaati bilaa ka taagan waxa wax dilo waxa wax kufsado kufsiga Soomaaliya hataa fiiri hadaa u sii fiirsato waa single mother raise children way hooyada Soomaaliya ma garanayo hooyooyinka kale waxa ay dheertahay adduunka Mareykanka Europe cid kasta markaad eegto cidda ugu daran oo kufsiga iyo dilka iyo dhaca iyo boobka iyo xaaraanta iyo iska dawareega waa ilmaha bilaa aabaha ah وإلما بلا أخلاقه وإلما أنا نقول الدنيا آخر منها أنيسن be single mother هذا دونتو لكن this is what you need to know عيال وحيكون نقونا يان هذا عربها هكوعني المهم بكورنا يسمى كويسيني عبد الرحمن أنا أكو حكمة وقف قاصة له أيوة يو محمود شرفت الله سلامي كوبلاو qofkii ugu horeeyay ka soo qayb qaato malaha xaq raganaay فريد waxaan waxa weeyaan Cabdiraxmaan baan waxa weeyaan aad sheekadiisa uu bogay laakiin waxa weeyaan waa ka soo horjeedaa waxaan dad badan maamooyin badan Allah dhowrta hooyooyinkeen wiilasha badan oo ku faanayo leeyahay raggaas soo baxayna waxa weeyaan wax soo saaruun hooyo Cabdiraxmaan inta badan wuxuu arkay inta negative ku ka hadlay laakiin positive ka kama hadlin duma hooyooyin badan waxa jira raggii ay ku dayaheen ilmihii waliba qaar ahaan Europe leedinka America leedinkana tareeyaba ka fushaanaguna basas iyo tagaasi ayaa laga foolay qurbaha balay isku professional baleeyahay hooyo waxaad arkaysaa inkii intuu 12 saacadood ama 18 saacadood taxi ka fushana guriga u sii diyaarisay ilmihii u sii xanaanaysay quraan u bartay cunto u sii diyaarisay isagii waliba xaqii looga baahnaa markuu yimaado inuu ciyaaladii casharadii iskuulka wixii ka harawiyo uu isku dayay markuu 18 saacadood soo fushana haddana inuu tago maqaaxi oo dumad ama waxyaabahaas uu soo ciyaaro hadhow toole ilmihiisa markay dhibaato ay timaado meel aan wax laga qaban karin hooyadii stress ku dhaco kuwaasi Cabdiraxmaan wuxuu ugu doodayaa muxuu oranayaa yani hooyadii ayaa wax dayaadima la oranaya Cabdiraxmaan su'aalahaas qoro balka jawaab maamo miskiina ma sha Allah sharaf leh oo kula doodi kareen baan ayaan ka arkay saas awoodeeda iyadoo wali waqti dambe noo tahay baan tiri wallahi ka qayb qaado أنا قصتي الكورة عينينا مركز لبعض برنامجنا وكلا سميناصو فنان مهي لكن فرحية كوا يراك على يطلق ساس ودي سنة سداعي كريه بالانسات ولا يراقو في عم شوية وحبا الله هريا
ilaahay labadiina ma hadig guuleeyo laakiin Cabdiraxmaan qaybta positive ku darmo qaarkood ay hooyooyinkeena ay leeyihiin insha Allah waad mahadsan tahay wiilka Finland magacaaga muxuu ahaa walaal liibaan waad mahadsan tahay walaal inaad nagala qayb qaadatay su'aalahagan haddaan ku bilaabaynaaba si aan uga jawaabno okay su'aalahan maxaad ka qabtaa positive-ka uu wuxuu yiri negative-ka aad u yara badan tahay dhinacaan aad u yara badan tahay xagga ragga waxaan jeclaan lahaa in walaalaha rabo qaar baa bahalkii maxaa mawjiga guduudan oo xanaaqaya soo tuuraya war يعني دبك هذا الويان ولا عندي رتيني سو وعدني جزاك الله خير ولي waxaan jeclahay gabdhaha oo Dr. Qoys la safan inay soo wactamaan oo arkaya kuwa badan oo commentiga halka ku soo qoraya oo la Cabdiraxmaan baa saxan oo dumar ah dumarka aad u yiriin laakiin waxaan aaminsanahay inaad tiin dadka dumarka kala wax dheer inaad tiin dad soo wici kartaan way wanaagsanaa lahayd si aan u helo dumar oo arkaya meeshaan wax ka arkay ragga Soomaaliyeed qiimaha ilaahay walaalkay positive-ka uu tilmaamayo waxa ka weyn negativity-ga ama culayska yaala ayaa ka weyn hadda ku bilawnay culimada diinka qaar dhamaantood ma dhahayo waxa ay la side gareeyeen dumarkay la side gareeyeen dadka aqoon-yahanada la yiraahdo dumarkay la side gareeyeen ayadoo wajiyo badan iyo magacyo badan loo bixiyay sababaha ay ku sameeyeen abwaano waxaana ka mid ah in dumarku uu yahay resource dhaqaale oo yani haddii ay ahaan lahaayeen qolooyinkan masaajidada iyo haddii ay ahaan lahaayeen qolooyinkan maaragtay siyaasiyiinta oo dumar baa u hagaajiya dumar baa u kariya dumar baa u dhaqa بالمناسبة يا حق القاعة هذا العقد المحاجزة اللي كل زمان دبرك على قصة وروريا رجل بالله قصة قضايا مركا أكثر وحاس مجد ذهبية ذو ذي فران حقيقة مركا لقى هذا واحد كهذا إن بيو هذا لو أنت المام واحد ذي الله أركين واحد إذا وباهم تذكر قربة وحب باين أنت عدمرون بالود عيني اللي هبلاي هبلا لو كنت دولار لبا حضي تعامل خير أنت إيش الضابط يا dumarku masaakiin weeyaan dhinacana waa laga gurta masaajidka dhinacana ka gurta dhinacana caruurta waa lagu dayac bal laakiin aan su'aalna weydiiyay labadiinaba abooba wuxuu yiri dadka taajiro Soomaaliya oo China taga oo horta Soomaaliya qofku uu taajiraya wuxuu ku taajirayaa musuqmaasuq wuxuu ku taajirayaa canshuur lagama jarto badan ما أنا هدلس أنا كوحي ويل أنا كوحي كمان أوكي هذه قبل عليكم هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام كسعة أنا waxaan ku jiraa dadka ka soo horjeeda walaalkan sorry magaciisa ma aqaano Cabdiraxmaan Qoys laakiin Cabdiraxmaan Qoys dadka ka soo horjeeda ahay ana waxaan deganahay Ingiriiskana waxaad u malaysaa nimankii inay shaqadii Ilaahay kor saaray iyo responsibility-gi Ilaahay kor saaray inay ka wada cararayaan maamooyin badan jiro oo ciyaal inta looga tagay oo laga baxsaday oo la dhahayo ceyrta korinayso ama ceydha qaadanayaan marka Cabdiraxmaan markuu dhahayo aabayaasha saan waay way jiraan aabayaal fiican oo responsibility-gooda qaadanayo laakiin annaka magaaladan deganahay wadankan deganahay waxay u badan yihiin hadda inay responsibility-gooda dhan ka wada carareen ay markay qoyskan soo dumiyaan Soomaaliya iyo meelahaas intay aadaan ee gabar yar oo 15 ah takab isku siiyaan marka muxuu ka sheegi rabaa intaa teeda kale dadka waliba Yurub jooga ma hasantahay walaal macaan dadka waliba Yurub jooga nasiib bay leeyihiin ama America dawlad caawinaysa helayaan dawlad hadduu shaqaysto wax uga soo jaraysa helayaan bal kuwa Soomaaliya jooga oo dawladna haysan wax kale wax siinayana jirin oo sidaas laag ay ku sameynayaan kuwaas u daran niklina abwan waxyaabo waxa weeyaan بالمناسبة شلبا يركان ليني ونوض قرآنيني مركز بيري الشيخ باوخو ربا إنه جورجي قرآن سام مركز قبل يوم أيوه بيري أنا جورجي وحربا إنه قرآن سام مركز نيكي والله صح هذا موقت قبل يوم شيء بيري نيكي بالله هذا يوم أنا تشوفه أيام عرضت قرآن سارية مركز
sheegaysaa ninkan inuu carruurta quraan saaro wax lagu quraan saaraya isagaa bixinayo sheekha lacagta la siinaya isagaa bixinayo guriga waxa raashin la bixinaya isagaa bixinayo reerka isagaa mas-uula haddana xataa waxaa loo ogolaan la'yahay ciyaalkiisa cidda quraan saaraysa inay timaado marka waa propaganda aad u adag ragga Soomaaliyeed oo lagu waxaynayo gabdhaha iyaga masayr baa ka buuxa runtii waan u garaabayaa inay wada masayrsan yihiin waa la furayaa horiinkana kor buu usii soconayaa ilaa laga helayo cadaalad gabar walbo in uu ninkeedu u guursado ilaa 4 uu guursado cadaaladdan sida laani hadda way bilaabeen laftigooda inay wiilal yar u guursadaan waxa cid wax ka qaadaysaa ma jiro sidaas baa u waaranaysaan iska waashaysan doontaan ragga Cabdiraxmaan awal idinkum baa wax guursan jiray hadda laakiin islaamiyi baa waxay bilaabeen laftigooda haddii odayga ku xumaado dhac wiil yar bay isku soo feereynaysaa marka yaa lagaa badin baa meesha ka socota waan soo dhaweynayaa maamooyinka ayaga wiilasha waxaan weydiinayaa marka ma laga yaabaa dad gabadhan hadda sida gabadhan hadda ingiriiska nagala soo hadashay waxay tiri rag fara badan baa reerahoodii dayacay carruur iska dhalaya markaa iska baxaya mas-uuliyaddiina ka tegayo de markaa carruuro kale iyo muxuu ahaa reero kale inay Soomaaliya ka dhistaan bilaabaya maxaad ka qabtaan idinku Cabdiraxmaan baa difaaca ku jira anigu dhaliilaya raggana ugu badan dee waxaa sameeya halkan ay ka tegayaan reerkoodii horey baa ka gubanaya ama waa kala tegayaan ama ayuutadii yareeda ururinaysa baa odhanayaa guri baa noogu soo dhisaya dabeedna naag cusub buu ku dhisanaya warda wax ka indha adag Soomaalida ah waa waxyaabaha aan miisaanka lagu saari karo daal gabadh baa waxay leedahay statisticska intee ka keentay annaga ku aqrinayna dhageyso ragga Soomaaliyeed inay yihiin rag qiimo badan oo yani ka qiimo badan ragga kale caalamka waxa kamid ah ragga Soomaaliyeed inay guur badan yihiin nimanka Soomaalida inay guur badan yihiin waxa ay tahay waxyaabaha quality-ga rag marka laga xisaabayo ragnimada la xisaabayo yani siinay ugu yaraan 25 to 30% of darajo siinayo laana walaal adduunkan cadaan iyo islaam gaal iyo madow nooc doonaba ha ahaado dumarkooda inay dayacaan bay u soo xayteen property inay ka dhigtaan bay u soo xayteen gabdhahoodii in ay u yeelaan one man one woman inay u sameeyaan oo aanan sunanka ilaahayba aan ahayn oo aan isu dheelitirnayn ayay waxay u sameeyeen dumarkoodii iyo gabdhahoodii inay dayacaan wallahi ragga Soomaaliyeed waxyaabaha ay ku qiimo badan yihiin waxa weeyaan inaan u ogolaalin gabdhahooda inay public property noqdaan for example haddii 3 iyo 4 ciyaal ay dhasho jiro dareen ku qaadaya xaaraan ku qaadaya ma jirto hadalkii ugu fiir dumarku uu dhibayaa ragga uu farxad gelinaya laakiin cadaaladda ayuu yahay gabadha haddii 4 iyo 5 ay dhasho waxaa la yidhaahdaa waxaas drive-ka ama maaragtay dareenka oo kale la mid ma aha gabar aanan guursanin oo kale marka gabadha 5 iyo 4 ay la haysataa hadduu ninku wuxuu guursanayaa gabar aanan weligeed guursan abaaya ayaga markhaatiya 15 jir ama dhaxyar bay soo guursadaan dalkii intay tagaan taasi waxa ay weyn ka tahay marka sare u qaadidda iyo qiimaynta gabdhaha iyaga inaanay bilaa guur noqonin Bill Clinton waa ninkii yiraahday no child left behind annagu waxaan leenahay Soomaaliyeed no left behind without marriage gabar bilaa guur ah inagu horjeednaa gabar walba waxaynu doonaynaa inay guur hesho systemka ay guur ku helaysan waxa weeyaan gabadhii dalqada dalbataa sida abaaya ay sheegtay kalarka qabsato ifur waa igaro ku garanayna waan ku raacinaynaa mid kalintoodna waan guursanaynaa hawshiina waxay ku soconaysaa equal gabdho badan baa marka noo badbaadaya xal ma imanayo marka fiir ilaa xal baanu rabnay fiir xal ma imanayo marka taa la yeelo xal ma imanayo teeda kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yiri fiir ya afar iska guursa laguma dhihin maalinba gabadha yar sidii orgi yar daba cararo tii dhex yar guursa laguma dhihin ilaa tanba dhexda adaa balqiyay oo carruurta adaa dhakuu dhashay iyadoo dhex yara tanba guursatay moogta kuma imaan iyadoo dhex weyn ta kale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yiri haddaadan xaqa simayn ha guursanin haddii aada equal ka dhigaynin ma aha waajib inaad guursatid haddaadan kari karayn inaad is og tahay ma kari kartid oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaaba yiri markii la weydiiyey
yaad ugu jeceshahay xaasaskaaga Caaisha ninka Soomaaliyeed kama karta afar naag haduu guursado waxaad ani ma jeceshahay wuxuu ku leeyahay kulligiin waa idin wada jecel beenta intay ka gaareen waxaan ku weydiinayaa naqoy mararka qaarkood hadday qofta dumarka xaqa ninkeeda ay ka soo bixi weyda ka waran iyaduna xagaan iga soo bixayso tan dumarka Soomaalida laga dhigay computer maba ka soo bixi weynaysay computer baa laga dhigay wallahi alcadiim barkee waxaad maqli jiray nin daad qaaday xumbe cugsay ay dadku markii hooyada ilmaha lagu dayaco maxay samaysaa markaasay dhexda u xiranaysaa is leedahay ilmahaaga ayuu kaa silcin maskaxdeeda maxaa ku jira ilmahaaga gool gaarsii ilmahaaga waxa barto ilmahaaga diinta bar ilmahaaga quraanka bar ilmaha dariska ayuu ka harin ilmahaaga ayuu dhibaatoona la silcinin hooyada maskaxdeeda waxa ka guuxaya waa ilmahan siduu u gaari karaa moolkii iyo darajadii uu rabay halka aabaha Soomaaliyeedna ka guuxayo xagaa mid yar oo dhax yar ka hela liibaan baa kusoo laabtay uu kaadi liibaan kusoo laabanay السلام عليكم عبد الرحمن بان هدنا ويريا كل وير ما هو فكر عبد الرحمن محو جوابيا عبد الرحمن دور شير waxa way horta markasta uu isdifaacaya ilaa khirasiyo rag u difaacaya abayaasha masaakiinta ilaa khirasiyo laakiin عبد الرحمن waxaan ku weydiin lahaa gabadha 6 ilmood ama 7 ilmood dhashay ee guri joogta aroortii soo kacday iskuulka kala geysay soo noqotay gurigeedii hagaajisatay cunto diyaarisay ugu sii shiidatay sii labisatay galabtii ciyaarkii soo kaxaysay ninkii uu iman lahaa aanu iman habeenkii 10 habeenimo uu yimaado isagoo daalan uu seexdo xaqeedii aanu siinin ilma aanu ka warhaynin aabahaas oo kale ma difaacasaadi weli ma ku sii taagantahay inaad sii difaacdo mise waxaad leedahay aabahaas wuxuu ku jira kuwa xun ku jir line-ka waan kaaga jawaabinaa adoo ku jira hay speaker-ka hay mas'uuli waa maqlaysaa maleynayaa wax walba waxaa laga fiiriyaa percentage ama ogolaasho maaragtay intee in leeg bay ka dhacaan waxaan ay bulshada ka jiraan ninka hadduu aad leedahay gabadha muxuu ula seexan waayey oo hooshii sararta u gudan waayey dabcan xanuuno way jiraan qofka hadduu xanuunsaya in la baaro oo caafimaadkiisa la ogaado haddii maxaa la yidhahdaa gogasha lagu cuno oo guriga lagu cuno banaanka lagu cuno systemkaas oo kale yani downgrade baa ku yimaada xagga caafimaadkii marka la yidhaahdo gogasha waxaa qayb weyn ka qaata inay gabadhu ninka buuqa ka yarayso rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi haweeneyda markuu ninkeeda gurigeeda uu soo galo dhoola caddaysa yani ismail garaysa ee haggaraysa ama maaragtay isu qurxisa ayaa waxay noqonaysaa maaragtay mid ambuuq iyo dareen iyo stress iyo wixii uu banaanka uu ka soo maray yani ka mayrta ayuu noqonayaa laakiin gabdhaha iyaga waa taqaanaa we know who they are you know islaamaha Soomaaliyeed iyo raggooda siday ula dhaqmaan especially markay dawladda la guursadaan oo ay dawladda isla qabaan yani xaaladooda xaaladaas ma aha gogolaa sheegtee furinka cirka sii aadayo marka waxaan qabaa ragga sidaas oo kale rag la dulmay oo la dhibaateeyey oo guriga iska joogo oo waxba yahay ku joogo waa naqanaa magaalada ay la degan yihiin waxba yahay ku joogo laakiin su-aashuu ku weydiiyey maad ka jawaabay madaxa saas tahay oo islaamuhu ka adkaadeen wuxuu ku yidhi nimanka sidaa samaynaya miyaad weli sii taageeraysaa buu ku yidhi nimanka sidaas samaynaya waa la gaarsiiyey darajada waa la gaarsiiyey waa la sameeyey يعني ولا حكاري وليس بدن بالو قبتay ciyaalkoodii baa loo diiday hogaankii guriga loo diiday gabadhii gaalada la qabto waxay aaminsan tahay in Soomaalida maskax yar hal maxay gaalada ceebtiina asturta gaalada u duceyn lahayd عبد الرحمن dood cilmiyeysan u noqoto waa inaad yani qirtaa oo tiraahdo aabayaasha qaarkood xun way jiraan si aynu aniguna kugu taageero ku yidhaahdo hooyooyinka qaar xun way jiraan laakiin haddaad leedahay aabayaasha dhan way fiican yihiin kaas aan kugu sheegay hatta kugu sheegan kuuri gabadhii intaas oo dhan samaysay habeenkii markuu yimaadana saas waxaan hadda markiiba igu soo dhacday sheekh Shibil su'aal la weydiinayo oo qof gabadh ay weydiisay tiri ninkaygaan soo guursanay guriga markuu yimaado ilama hadlo uu caadaysan yahay markii dambe waan u koorgalay waxaan tiri malaha ninkan dabeecadiisa saas waan iska daayay maalmaha kamid ah gurigiisii tagay oo familkiisana casuumeen oo tagay ninkii qosolka iyo sheekada ka dhacay soo yaabay guriga markaan ku soo noqonay sidii oo kale iska dhigay
marka waxaan u fahmay sheekhi xitaa wuxuu ku dhahay waxa weeyaan u samir buu dhahay laakiin aniga waxaan aaminsanahay inay jiraan rag qaarkood markay dumarka ay guursanayaan odayaal waaweyn la sheekaysto oo ku yidhaahda naagta waxaad barto unba hadhow kaa rabtaa oo ninkaas oo kale laga soo dhaadhiciye cadho un guriga markaad tagto afka buur ninka Soomaaliyeed wuxuu ku leeyahay naagta qabo micid kale wuxuu ku leeyahay adigana Cabdiraxmaan oo sidoo kale aad dhihin ragga Soomaaliyeed wada fiican yihiin qaarna way xun yihiin qaarna way fiican yihiin Soomaalida qof la xumeeyay uu dhibaato u geysto waxaas igu fiirnaysaa qof Soomaali dhibaatada uu loo geystay yani waxa la yiri geed badcaankiisu dhala haddii ninkaada aad xushmadii iyo ixtiraamkii uu yani uu kugu lahaa uu ka heli waayo dabcan dambay bidaysaa dambay biday markii dameerkii dabadiisa ka degtay yani ninkani markuu dhibaatadan iyo culayskan u dulqaado way gabadh inaan la hadlin mid kale ee culimadu way ka hadlaan shakhsi qof wax ku dhacay laguma qaadi karo jumhuur Soomaali laguma qaadi karo Soomaalida laguma qaadi karo Soomaalida mid iyo labo adduunka laga helaa marka kaasi sheegi mayno waxa la yiri findicilka xaraan miya mise waa xalaal markaas yiri sheegidiisii ayaan bahaboonay marka nin Soomaali oo xun maxaa laga sheegayaa maba jirey liibano waxa kaloo jirto mataqaanaa ma laga yaabaa waa runtahay sheekadaas waa jirtaa anigu waan aaminsanahay dumar xun inay jiraan sidaas baan sheegay laakiin percentiga dumarka xun waxa laga yaabaa inay 20% noqon karaan ama hooyo balwad yeelatay ama hooyo maaragtay stress ku dhacay madaxa ama hooyo maaragtay ciishootay sidaas oo kale dumar xun way jiraan dumar niman fiican hela way jiraan oo aan dhaqan adduunku wax wada perfect ma jiraan laakiin waxaan ka hadlaynaa majority-ga dadka qoysaska uu ka socon la'yahay oo lugaha ku dhegan inay aabayaasha yihiin zaki ana kala ma haysaa dadka lagu tabacayo way ku liibana waxaan ku weydiinayaa su'aal kale aan ku weydiinayaa ka waran haddii uu ninku inta badan dadka ragga Soomaaliyeed iyo dhaqankeena ayaa wuxuu yahay waxyaalo fara badan kama hadalno ma laga yaabaa haddii uu ninka uu shaqadiisa ka soo baxo oona gabadha shaqadeedii ay ka soo bixi weydo sida hadda adigu aad sheegaysay maxaad ka oran lahayd yani gabadha hooyadu shaqada ay ka soo bixi weyda iyo bal kala cadeey shaqada ay ka soo bixi weyda ma shaqada isaga waxay u qaban lahayd ba ama shaqada ilmaha shaqadii guriga waa dee shaqadeedii ma garanaysaa inay odageeda inay adeecdo ay qososho markuu guriga soo galo shaaha la hor ordo maankii in lasoo qaado shaah yaraa la soo ordo oo meesha la ordo shaqada dee taasaan u arkaa shaqada kale wixii dhan watuu ku leeyahay dee shaqada la isku soo guursaday baan ka hadlaynaa Libano may maqlaysaa waxay imanaysaa markuu aabihii soo maaha uu gabadha ciyaalkii ka hayo uu ciyaalkii ka caawiyo ciyaalkii iskuuladii cashiradii uu kala caawiyo oo laakiin hadda ka hor yidhaahdo intaad sii diyaarinaysa ciyaalka intay cashirada kala shaqaynayso dubnad baan soo ciyaaraya ama meelahaasaan madaxa kusoo furanaya ceeb haddii loo dhimanayo ragga Soomaalida u dhiman lahaa waad ku mahadsan tahay inaad nagala qayb qaadato ma wax kale rabto inaad ku darsato may mahadsanid insha Allah waa mahadsan tahay dhaliibaan maasha Allah de aabayaasha adoo kale ku jira nagala socona halkaas insha Allah I'm so happy in aabayaal fiican ay joogaan weli may zakiyo su'aashaada dumarka kama jawaabi karaan waana su'aal yani xishood mudan oo si xigmadaysan in loo sheego u baahan u dhigi lahaa gabadha haddii ay kasoo bixi weyso hawsheeda oo kale runtii aad iyo aad bay ragga uga cabanayaan arrintaas oo ah qabow baa jiro waan daalanahay ma qubaysan karo timaha ma fooneyn karo yani system kale iyo cunugii baa sidaana iyo carruurta qolkooda oo la isku xiro iyo waxyaabo badan baa jira ragga markaad waraysato dhibaatada ay ku qabaan islaanta iyo gubasha caqligaadaa diiday marka dumarka arrintaa gaalada run bay sheegtay gaalada anigu aan waxyaabaha ku taageera waxaa ka mid ah in ay dumarku markay raalli yihiin un maaragtay ninku ay
laba qof oo raale isku imaadaan haddii kale sheekadii rayb bay noqonaysaa waa ku taageera anigana marka indhaha buluugaa leh dee sweatinga laba baahi waa inay ka timaadaa meesha inay qasab ma yaale maye waa adaan ku gelinaya kaadi haye ku soco magacaaga adoo